bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal soo dhawaada waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka fiidiyoga ka horeeyay waxaan xoogaa ka taabtay qofku inay muhiim tahay inuu ogaado skin type-kiisa si aad u soo iibsatid wax maaragtay ku anfacaya maadaama aad og tahay skinkaagu nooca uu yahay san anigu hore idinku sheegay skinkaygu waxa weeyaan waa oily dadkan waxaan ahay wejigooda dufanka leeyahay finanka iyo waxaas leh marka waxaan rabaa inaan xoogaa aan idin sheego yacni processka aan subaxdii aan skinkayga aan mariyo my skin routine marka u horeysa waxaan sameeyaa subaxdii marka aan kaco waxaan sameeyaa waxaan isticmaalaa brandkaas actually I hope inaad aragtaan xoogaa nalka yara qaldaya waxaan ku dhaqaa wejigayga bahalkan maxaa la odhanayay cleanserka biyo diirra intaan qaato ayaan marka hore wejiga mariyaa kadibna intaan cleanserka qaado ayaan saas tartiib wejiga markasta marka aad waxaynaysid maaha inaad saa tiraahdid markasta kor ayaa la rabaa tartiib circle motions tartiib inaad saa aad u marisid okay waxaan idinku iri waxaan isticmaalaa cleanserkaas waxaa igu xiga halkan maaragtay tonerkaas ayaa igu xiga by the way qofkii interest ku ah productigan waan hayaa la soo socodsiiyo waxaan ku xijiyaa tonerkaas waa lambar 2 3 waxaan ku xijiyaa cabaar baan yar sugaa actually tonerka markaad marinaysidna waxaad soo qaadanaysaa cudbi yar cottonka intaad qaadatid ayaad saa u marinaysaa saas tartiib kaasi wuxuu ahaa processkii labaad oo ahaa maad aragtay tonerka kii saddexaad waxa weeyaan waxaan mariyaa serumkaas ayaan mariyaa serumka markaan mariyo waxaan ku xijiyaa moisturizerkaas ayaan mariyaa waa afartaas waa 1 2 3 4 subaxdii markaan ku codsaas ayaan waxeeyaa habeenkii intaanan seexanina sidoo kale waxaan ku celiyaa processkan ayaan labaad ku celiyaa aad ay muhiim jiddan ay u tahay inaad skinkaaga aad tiirka garaysid oo aad maalintii labada waqti aad maaragtay skinkaaga aad u marisid processkaas ta kale gabdhaha dawooyinka isticmaala waxaan aad idinkula talinayaa inaad markasta wejigiinu uu marsan yahay moisturizer especially kan maaragtay sunscreenka SPF-ka ku jiro adigu 35-40 meelahaas ayaynu inagu baahanahay kaas waa muhiim jiddan gabdhaha dawooyinka isticmaala inaad maaragtay bahalka aad marisaan especially waqtiyada maaragtay samarka markasta waad u baahan tahay moisturizerkaaga wanaagsan laakiin samarka waxaan idin kula talinayaa inaad especially aad soo iibsataan sunscreenkaas si skinkiina aad u protect garaysaan maadaama process maaragtay chemical ah uu ku jiro intaas ayaan kusoo koobayaa fiidiyogan ka xigi doonaa insha Allah waxaan rabaa inaan suunyaha aan sameeyo suunyaha sida ugu fudud oo ujeedaan makeupkayga waan soo sameeyay marka waxaan rabaa suunyaha inaan idin soo bandhigo sida aan u sameeyay fiidiyogan ku xigi doona haddii Ilaahay idmo maadaama ku cusbahay dalabaad weli ma aanan maqal marka waxaan rajeynayaa dalabaadkiina inaan maqlo insha Allah tacaala mar walba wixii aad doonaysaan ayaan anigu aan idin soo bandhigayaa laakiin haddeer maadaama sheekadani ay cusub tahay aniga ayaa wixii aan idin dooqo idin soo gudbin doona insha Allah tacaala marba casharada waan isdhex gelin doonaa timahana waan dambaysiinayaa haddii Ilaahay idmo haddeer waxaan xoogaa ku soconaynaa skincare-ka iyo makeup-ka ayaan xoogaa ku soconaynaa insha Allah tacaala aad iyo aad ayaan walaalayaal idinka mahadcelinaya daawashada aad daawateen fadlan waxaan idinka codsanayaa asxaabtiina inaad la share garaysaan maaragtay aad subscribe aad saartaan si aad ula socotaan fiidiyodeeda maaragtay iyaguna ay uga faa'iideystaan walaalaha kale markaad la share garaysid waxaan walaal idinku macsalaamaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fiidiyoga ku xiga ayaynu ahaan doontaa insha Allah iyo suunyaha sida ugu fudud ee loo sameeyo makeupkan dad ka heshaana ila soo socodsiiya isna waan idin soo gelinaya insha Allah tacaala nabadeen